kulan ay soo qabanqaabiyeen jaaliyadda Galmudug ee waddanka Finland ayaa waxaa looga hadlay dhibaatada haysata dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Finland. Waxa ujeedka kulankan ahaa sidii dhalinyarada looga wacyigelin lahaa dhibaatooyinka ay leeyihiin balwadda iyo muqaadaraadka. Ugu horreynna waxaa kulanka ka hadlay aqoon-yahan Cabdifataax Cabdullaahi isagoo dhalinyarada kula dardaarmay inay ka waantoobaan balwadda iyo muqaadaraadka. korinta caruurta waa tan ugu muhiimsan la rababa qofka inuu miisaamaba أنا وضع صح من خصوصا عروت وحيل يجيبها ربان شغلنا من وضدي من حياة ما حاجة غلط ضمي إنه لسه سنة باي سنة أنت عنق سندري كبحر معنا وحال عبري عنق منكم هلا سنة تشلو إلا إزديت منه جنون والد ولا صعبة أنا وإزديت وصل الشيخ قهوي وتدخل حكومة لنا والنمو هنا إسكتها وحسك نجرا أو أبا إسكتها دقيقة هنا أبا تايل مولانا حتى وقتيسا diinta ku qasabtay inuu faayna si soo raadiyo dhaqanka walaal waa sanaa markaa waxaan ilaahay markaa mas'uuliyad naga saarnaa dawlad maxamed siba qurbeenu keenay dal waxaan keenay aan diin iyo dhaqan naga duunanaga marka waxay ahayd inay nagu cagaas maskaxda ku jiraan bedelno muhiimada waddanka jira aan ogaano marka shaqo badan way markaa waa dadku waxay yiraahdaan waa mustaqbal qof noloshiisa oo kale shahaada lagu qaato dad markay jaamacad dhigtaan waxay qaataan master degree la qaataa Soomaan oo shahaadada oo tan ugu sartan tan ku xigtay way ka hoosaysaa ومستر ديجري وشقاء وستيت وصلوا على عنق كورنيس ولا لا سعطاء ستيب باي ستيب معنا مركو القدس برنايو اسلوب تيس انشي عيسى وحبشي تيس يلا ستيت مركو كغارو marka inaaf wali marka inta la socto wadin karta xildhibaan Calas oo kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee waddanka Finland ayaa ka hadlay doorashooyinka Finland ka dhacaya iyo sida ay dhalinyaradu kaga qayb qaadan karaan. waxaan sugaynay runtii muddo dheer in maaragtay dad badan oo musharaxiin la helo waana muhiim siyaasadda si aad u socoteen ba in laga qayb qaato oo boosaska aliista saddexan ku lahayn inaan badina maahane ay sabab ka yaraan marka taas waxaan ula jeedaa mas'uuliyad aan saarnaa annaga in horta qof kasta codeeyo طبعا codku qofku markuu qolka gala isaga uu qoddu u qoraayo isagana go'aanka iska leh laakiin muhiimadda koowaad waxa waaye qof kasta oo guri kasta xataa asxaabtiisa iyo dadka kasta maaragtay in maaragtay loo soo kaco la codeeyo waqti dheer naga dhiman oo naga xiga kalidii campaign iyo olayaasha dadku waa musharaxiintuna waa bilaabi doonaan shacabkuna annaguna waa bilaabi doonaa insha Allah waa macnaheedu in dadka la wacyigeliyo inay codeeyaan taas ah muhiim ah tan shakhsiyadeena haddaan u soo laabto laba xilliyaan galaan u malaynayaa adiga maraan 6 bilood ku darsanay oo waxaan u malaynayaa 8 sano iyo 5 bilood aan u buuxsamaysa samarka soo socda sideedaas sano runtii aniga hadafkaygu wuxuu ahaa inaan ka shaqeeyo macnaha deegaankeena bulshada aan ku noolnahay aan la noolnahay sida aan ama uga muuqan lahayn ama wax uga qabsan lahayn ama nolosheena maaragtay ay qayb uga noqon lahayd dad badan ay yimaadeen waxa dhaheen wareer alaab geenisid miya wareer cadaada ka timaad ma geesid halkaas aad ma geesid waxa ugu jawaabi jiray runtii aniga dadkaas xagga jira aniga hadafkayga ma ahayn dadka i doorteen waa bulshada magaalada Turku degan iyo nawaaxigeeda oo ii codeeyeen tiina aan wali ku taagnaa Turku iyo asxaabta magaalada markaan u soo laabto runtii aan qadarad weyn aan u hayaa ayagoo dhalinyaro leh hooyooyin leh maaragtay odayaal leh ayaa magaalada dhan ii wada duubad laga soo bilaabo bilowgii ilaa haddana oo ii taagan dad baa hadda ilaa hadda ay weydiiyaan calasmoodan sharaxnayn sanadka marka ayadoo taa jirto runtii waxaan go'aansaday anigu bal sanadka inaan ka haro oo aan u daayo musharaxiinta cusub ama dadka soo sharaxaya ama dee muhiimaddu kulley waxay ahayd inaan saddexdaas boos aan ka yaraan taasna waxaan rajaynayaa inaysan ka yaraan doonin oo aan ku dadaalno si ay yaraan taas inay imaato inaan ka badanna maaha sidoo kale waxaa kulanka ka hadlay maamul Faadumo Cali Maxamuud oo kamid ah maamooyinka ku nool dalka Finland iyadoo boorisay dadaalka iyo waxqabadka ay wadaan dhalinyarada ka soo jeeda deegaanada Galmudug ee ku nool dalka Finland xafladda jaaliyadda Galmudug maalintii la aasaasay jaaliyaddan 5 sano ka hor waa ogaa dadku wax ka qabanayaan inaan ahayn aniga iyo maamo Nuuro marka waxaan leeyahay dhalinyarada iyo bulshada jaaliyaddan waxaan leeyahay hor u socdo dhalinyarada Galmudug waxaan leeyahay lagu daysado ha ku daysadaano jaaliyadaha kale si kastaba arrintan ayaa ku soo aadaysa iyadoo bilooyinkii la soo dhaafay ee dadaallo horumarineed ay wadeen dhalinyarada ka soo jeeda deegaanada Galmudug ee ku nool dalka Finland Cabdikariim Cali Aadan